adeerka la dilo ee walaalka la dilo in adeerka la digo ee maatadaada la duqeeyo carruurtaada la laayo ma nacas baa tahay uma bilaabo damiir baa tahay dagaalkani runtii wuxuu banaanka soo dhigay cadowtinimada nacaybka iyo naxliga ummadan iyo deegaankan loo qabo qof kastoo damiirlo oo deegaankan iyo dadkan ka soo jeedaana deendhiisa oo macallina dhagihiisana wax maqlaya maanta waxa uu dambeeyay sheekhi miskiinkii odaygii yaraay tabliiqa ahaa cabdi aadan dheere iyo dad kale oo maxasa oo xabada ay ridayeen ka qaxay oo meel baadiya ah maraya oo aan dagaal ku jirin oo magaalo ku jirin oo gaariga ay wataan oo gaarigii shirkadihii baabuurtii dadka guri jirtay uu yahay inay dadkii ku laayaan waa umulodoox weeye annagu waa gobonnimo dagaalamina sida garaadada iyo isimadoodu nagu hogaaminayaan sida ina bixiyo argaxiis u dhaqmayaan oo dhaqmi mayno dadkan waxaan ku wacdiyeeyaa aan leeyahay maatada dumarka caruuraha iyo dadka aan hubaysnayn ee dhulka maraya ammaan hala sii hal nabadgeliyo laakiin nimanka argagixisada ah SNM ama Somaliland iyaga xabad baa inaga dhaxaysa xabad waxaan ahayn oo aynu ku kala calaf qaadaynaana ma jirto sababtuna wax kale maaha magaaladii duqeyn baa ku socota oo dadkii wata banaanada lagu leynayo oo dhaawac la qabto wala dhaawac tiraya oo waxa ay adeegsanayaan yeeradayada isticmaalayaan ee dunida ka gadayaan waxa weeye argagixisaan la dagaalamayna maana argagixisa anigu halkan waxaan imi maalmihii ay intaan shaqaqadu bilaaban waxaan ahaa dadkii calanka u siday Soomaaliland u sacabtumayay rabay jeclaa in wax la wada qaybsado oo wax la wada yeesho doonayay waxaan ahaa ragii golaha wakiilada u ordayay doorashada doonayay waan systemka ka soo dhex tartamay doorashaan doonayay maantana kan baan sitaa kan maxaan u sitaa waxaan u sitaa wax kale maaha marka adeerka la dilo ee walaalka la dilo in adeerka la digo ee maatadaada la duqeeyo carruurtaada la laayo ma nacas baa tahay uma bilaabo damiir baa tahay waxaan runtii rabaa inaan idhaahdo nimanka reer Hargeysa iyo reer Burco hantaata amaan walba soo haya culimada iyo madax dhaqameedka isku sheegaya khaasatan kuwii lahaa ergaanu nahay war haddaad ergadahiin oo erga noqonaysaan wiilkiinni baa xabadna la dhacaya kii idinka aad ehelka ahaydeen baa madaxweynaha wasiir ah oo amarka bixinaya kuwiina qabta ma kuwiina markaad qabataan ee aad nabad ka keentaan ee deegaanka iyaga dadka iyaga nooga baxdaan baynu wada hadli karnaa laakiin haddaad noo timaado adigoo wiilkiinni iyo walaalka iyo adeerka midna madaxweyne yahay midna maatadada iyo carruurteeda xabad la dhacayo midna dadkii maxasta ahaa baabuurta kala degayo adigana xabad baanu madaxa kala dhacaynaa nimankii soo socday isimada isku sheegay kelmadda leh waxaan kala rabaa inaan idhaahdo qoladii garxijis ee halkan ka hadashay ee tiri annagu qayb kama nihin wali dagaalka kama idaan bixin dagaalka oo ku jirtaan falaadhina gilgilasheedii kaga go'ay mayso ciidamadiina nagala baxa waanu idin magan gelinaynaa waa idin nabad gelinaynaa xabaddeeda oo ka amaan helaysaan wiilashiina xabadda waliba sida arxanka daran inta amarka loo soo siiyo safka hore la soo gelinayo ee safka hore loo dhigayo ee meydkiisina aan la aasayn halka waraabuhu ku cunayo war meydkiina iyo dhalinyaradiina kala bax anagu reer gaarana colaadu ma hayno qabiil gaarana colaadu ma hayno laakiin kaanu colaada u qaadanay qabiilka gaarana colaada u qaadanay waxa weeye ka umuladooxa sameeynaya weeye waxaan rabaa inaan idhaahdo reer SSCna iyo nin halkan oo la maslaxayo oo wax laga suubaa salaaxay anigu aanan garanayn haddii maanta ay umuladoox bilaabeen oo dadkii shacabka ahaa ee banaanada maraya loo umuladooxayo may dambe iyo dhaawac dambe iyo sahay dambe oo laamiga dheer maraya haddii uu dhaco dee dagaalka aynu iska dayno oo aynu isdhiibno dee maxay 100 kiiloomitir oo dhulkeenniya bay si nabada ku sii marayaan dagaal lixdeena ka dhacaynu ka cararaynay inagu inaynu iska hornimaynaynu ka cararaynay waxba aynu tixgelinayn wixii aynu xeerinaynay wax ka weyn baa yimi marxuumka dhimanaya ee maanta dhintay Allah yarxamo dhintay ee halkaas oo qori sidanaya shacab la iska dilay ee ciidamada Soomaaliland dileen in cambaasho labay kala tirsanayaan iyo saddex maxaa isaga loo tixgelinaya marka haddii aanu kaana kii dilayna soo qaban karin dadkayga maxaa loo leeyahay oran karin ninkaas iyo ragga la midka ah ee mabda'a haysta xisaabta Somaliland iyo ragga in la dagaalamay liiskooda ku biiraya odayaasha iyo culimada xalay ergada galay ee dagaalkii xalay iyo hawshii xalay hawlgalkii xalay baajiyeen waxaanu leenahay
NF intaas waa nagu filan tahay haddii aydan saacadaha soo socda warcad ka keenin oo hubka halkaa yaalla annagaa leh Somaliland qori kuma leh qabiilkaa leh dadkana iibsaday lacagtooda kala baxay haddii aan hubka iyo tiknikada halkaa taala lagu aanay ku imaanin oo aanu degdeg looga soo wareejin aanay odayaasha iyo culimadaas gacanta ku soo celin qasab buu gacanta ku soo gelaya qoryaha halkaa lagu furanayo Somaliland laga furanayo buu la mid noqonaya waanu ogna inamada yar yar ee ilmaadirada aanu nahay ee dibinta ruugaya isaga la joogana waxaan leeyahay waanu idin imaanayna dibintana dib ruugi maysaane aanu kaadi badana waa loo gogol badiyay odayaasha warkooda aan soo afgoyno waa mahadsantii